mawlidka Soomaalidu waxaan ka hadlaynaba maaha anu de waayahan meelaha lagu dhiga ma tegine kii aan soo gaarnay naqiinay idaacadaha iyo warbaahinta soo laga qaadayo maqallo islaamnimaba maaha ka Soomaalidan ka hadlaya bidayba iyo barsanjigana waxa la qaado shirki miiran way isagoo keligii oo waxba lagu darin yaaman lahayn bidca weeye kan Soomaalidu shirki way inuu yahay de ninkaan aqoon baa loo digdigiyay damdhaha anagu mawlidkana waa naqaan dabiiciya barsanjina waa naqaan burdiya hamziyana waa naqaan مولاي صل وسلم هي ما قعدنا فاتقنا سوا مركي النبي صلى الله عليه وسلم قاضيه أم ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء له أم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلقك كلهم مركي خير خلقك كلهم لقاضيه waxaa loo gogol xaarayaa halku dhigay u tahay waxaa la qaadayaa burdihi baa la qaadayaa مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلقك كلهم اسمعين مسانا سمي بردو waxay ka bilaabataa من تذاكر جيران بذي سلام مزجت الدم عن جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلقك كلهم هيا يا كحيل بيس كحيل يا قال كل جيمبا فاكر بقصة على ذي هو تيران وياه أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أراقت لذكر البان والعالم صوصاص معي قلني ما نقوم بالله قال وحلقة يا بعض اللي انت يدا يركع إن بردها أقول إن الله ورتين بضا بردها اسمها كتشرة الشركة باكبوح عن قيب دي كم قشية مركب أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم أقسمت بالقمر بانكودارتي من حلف بغير الله فقد أشرك النبي قال الحديث كان عمر صلى الله عليه وسلم أقسمت بالقمر بانكودارتي يكون بالنيادي محاكلو كتيرة يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومرقدن الشرك ويعبيادنا يا أكرم الخلق خلقك يشرف بالنايو ما لي من ألوذ به إذا مغنقل ما يستانوه عند حلول الحادث العميم مصيبة وين القيامة مركي لحظة إذا مغنقل ما يستو وسواك أذي أنا هين كذب حوري لم تكن في معادي آخرها دادا النقن آخذا بيدي قعنت ميدي قبته فضلا أضو إيقو أبالي سمينيا وإلا فقل يا زلة القدم هذيك لو حاجة هذا من النار تقول عايو لوكتيسي السبقتي قده فإن من جودك الدنيا تأخذ محمد أضو أض بحسي وحاكم إذا أدوية داق أضو بحسي إلى باب بحيا ما وضرت آخرنا داق أضو أض بحسي وراخر أدوية إسكالي يا بحيا وهذا النرشن
iyo nicmadan adduunka ma nabi maxamed bayna siiyey mise allah bayna siiyey faina min juudika deeqdaadii nabi maxamedo waxaa ka mid a addunyaa adduunyada iyo wadaratiha aakhiro wa min culuumika ay cilmigaagaa laga qaatay cilmu lawxi walqalami lawxulmaxfuudkana adaa lagaa bartay ilaahay cilmigu lawxulmaxfuud ku qaadaa laga qaatay markaasaad nafacana allahu bihi leedaho mawlid nabi baan dhigaya ad leedahay waxaasaa dadka looga dhigi ilaahay baa loogu dhoweyn ma shirki baa ilaahay loogu dhowaa nebi maxamedna lagu weyneyn war waxaa waa wadiidka soomaalida waxaan wey ninkii faahfaahintaa ka badan burdaha ka raba iyo mawliidka waxaad orayka dhowr sano ka hor aan duubay ee maqal iyo muuqaalkaa ku noqdo hamziyadii baa ku jirta iyada mawliidkan aynu qaadnee daybiciga mise barsanjiga kan dheer ee barsanjiga daawacan رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء والله ما كنت والله ما تقانا هيربك كومبس كأيره بيرك هيربك زوج سيد حقوقي ها استغنى محل لقى هذا همزيدي بقى لقى هذا maxay ka bilaabataa kayfa tarqaa ruqiyika alambiyaau ya samaan ma tawaalaatha samaau lam yusawuuka fi culaaka waqad xaala sanan minka duunahum wasanaau iyadana maxaa ka mid ah shirki baa ka buuxa 55 beyt oo qaar laga isu jarjaray oo dawaagii horena la dhihi jiray mustajaabu dacwa wey markaad qaado baa shirki ka bilaabata shirkina ku dhamaata weligiin ma maqasheen markaad shirkiga qaadun baa ducada ilaahay ka aqbali maqashay weligiin wax la yaab la wey dadkeena Soomaaliyeed waxay garawsho ku leeyihiin saasaa loogu sheegay carabiga lama aqoonin carabiga lama yaqaan maxaa ka mid ah nabiga la amaanaya nabiga iyo Faatime iyo 10 mubashiriin bijanna iyo Xasan iyo Xuseyn iyo علي عثمان وحن ليه عباس حمزة بالمرنيا بأبي القاسم الذي أظهر الله به الدين فرعا والرقباء أبي القاسم بان كل عرتنا محمد صلى الله عليه وسلم قال السيوذي وبريحانتين طيبهما منك الذي أودعتهما الزهراء ريحانتين وحسن يا حسين وبعميك نيري فلك المجد وكل أتاه منك إتاو عميك وعباس يا حمزة بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء وأبي حفص الذي أظهر الله به الدين فرعا والرقباء وابن عفان ذي الليادي التي طال بها ابن إلى المصطفى بها الأسداء وعلي سنو النبي ومن دين فؤاده ودته والولاء وحواريك الزبير أبي القرم الذي أنجبت به أسماء والصفيين توما الفضل سعد وسعيد للعدة الأصفياء وابن عوف من هونت نفسه الدنيا ببذل يمده إثراء والمكنى أبا عبيدة إذ يعزى إليه أمانة الأمناء أو عشر المبشرين تري وبأزواجك اللواتي تشرفن بأنسانهن منك بناء انت أصلا هو الداري ونعم محمد دار نيزا ما حد كربتها ألمنا إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء ألمنا إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء الأمانة أمان بان آخرك ويدي سنية إن قلبي من ذنوب درتين أتيتهن أن سمي هواء مالح المكود عيوي يا آخرين أدنا بتقليسان كاربا وآخرين وحنا بتقليه الله سبحانه وتعالى بركاسة وحنا لنا أحمد بن وين يا شركة بنكوين يا ولد سبحانك مولد كان صومالي ويا قريضه كتاب لجوب مضمع بركاسة كان سوق هذا بإلهي بقى وحاجة أقبلي بكله وإلهي مركي لو الشريك هذا وأقبله مع أصنام الكعبة اللي وجد مني مركني ميه
intii hore waxaan ka hadlayay mawlid aan dambi kale la gelin buu ahaa oo wax khalad lagu darin laakiin kan Soomaalidu ay dhigi jireen anigu aan aqoonay hadii gadaal wax laga badbadalo la gacmaheey garan maaye waxaan weeye waxa la qaado kiriyana ma ahe atirillahu madana shirki baa ka buuxa barsanjiga iyo daybicigana shirki baa ka buuxo kan barsanjiga dheer gadaashiisu daybiciga ku daabacan yahay faafahinteeda waqtigeedii ku dheereeyay raalli hada hadii laga maarin waayo mar baan su'aalihiina dib uga jawaabi doonaa hadda waxaan u maray waqtiga dheeraaday kolba maamulkan u deynaya anigu hadii la yiraahdo 6 saac inuu isla gaarna waxba kama qabo وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وقتي القرآن كدقي لما أقول وحلي هذا مولد صحابة النبي قو إنتي نولايين وقت بين النبي كدم بين إن بدنوا أيجا كم إذا إنتي نولايين لما أقول وحلي هذا مولد ما المهن مركة واحد شرا عادنا السند والبعض بيشنو كلا إن أيضتكم نولايين بدعاء الله يقان مولدك بدعاء oo waagi hore si yara room bay ahaan jirtay hadda ka dar oo dibi dhal ah meeshay maanta marayso in heer la gaarsiyo xataa in laga dhigo ciid weyn munaasabad weyn oo ciid ah oo dawladaha qaar kood xataa ay yaani ciid ahaan u aqbalaan oo holiday laga dhigo ilaa heerka marayso loogu diyaar garoobo sanadkii markay soo socoto lacag aad u fara badan loo sii ururiyo qoliyo dadka ka shaqeysto jeebkooda wax ka urursaday ay munaasabada sanadka sugaan oo Allah yaa idin gaarsiiya waxay noqotay bidco maalinta ka dambaysa irid cusub sii furanaysa arintaasi ma jirin waqtigii quraanku dagayay lama aqoon wax la yiraahdo mawlid saxaabadii nabigu intay noolaayeen waqti bay nabiga ka dambeeyeen in badan oo ayaga kamida intay noolaayeen lama aqoon wax la yiraahdo mawlid ardadoodii oo taabiciina intay noolaayeen lama aqoon wax mawlid quruntii saddexda ahaa aimada waaweyn ay noolaayeen lama aqoon saas daraadeed atahadda hal kelimo oo ku saabsan mawlidka عروكاسي هل لغسو قوري إمام الشافعي إيا إمام مالك إيا إمام أحمد إيا أبو حنيفة إيا أوزاعي إيا الثوري إيا ابن عيينة عرها لغسو قوري محايلة ما بتشرين با وحلا يقاني ما أهين قرما يتمد علماء انت غار كميدو أقيل رادية iyo jamaahirtooda oo diiday waxay isku waafaqsan yihiin culimadii muctabariinta ah baan ka hadlay ma nin soo ruuleeyay oo hawa wadama ah laakiin culimadii muctabariinta baan ka hadlay rag wax u raadiyay xataa waxay rumaysan yihiin inayna saddexdii qarni midna jirin waa la isku waafaqsan yihiin laakiin wixii ka dambeeyay ay timid qolada ugu roon waxay leeyihiin waxay timid qarnigii afraad qolo kaleetana waxay leeyihiin ma qarnigii lixaad bay ku soo biirtay adduunkaba raadkeeda inaan dib u sii raaco mar raba yaa keenay waqtigu iima saabaxay oo xidid xun bay leedahay mawlidku marka la raad qaado yaa bilaabay xididkiisu ma fiicna niman zanaadiqa aba bilaabay oo faatimiyiin la dhihi jiro culimada islaamku isku waafaqsan inay gaala ahaayeen oo ka talin jiray maghrib al-arab iyo masar waqti ka talin jiray nimankaas bilaabay wax jiray oo hore ma aha marka mar haduusan horeynin hal su'aal isweydiid ruuxa caamayga ah muxuu yahay ilaahay baan idin ku dhaariyay khayrka nabi maxamed ka qarsoomay sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii ka qarsoomay taabiciintii ka qarsoomay saddexdii qarniye imaamiyadii waaweynaa ka qarsoonay ee ummadda u soo baxay qarnigii afraad khayrkaasi xagee ku duugnaa سؤال اسويدينيس sidaas daraadeed baa qodobkaasi markay mari waayeen nimanka u ololeeya mawliidka oo qodobkaasi ku adkaaday ayay intay ka wareegteen alla ka cabsi baan jirin oo alla laga ma baqayee intay ka wareegteen baa waxa la bilaabay in la yiraahdo quraanku waa mawliidku ku yaala ajaa'ib war xagee kaga yaala markaas la bilaabay in aayadihii quraanka la luqunji baaro
oo inta luqunta la soo qabto qaabkii la rabo loo geliyo oo meeshii la rabo loo daliishado war aayade qul bifadli illaahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu umad bu hor fadhiya waa wadaad waa imaam waa sheekh kutubu akhriya aayadaas mawliidka ku tusibu war yaa kaaga horeeyay uma baahni wax iiga horeeyay war yaa saa ku tafsiiray uma baahni ma ibn Abbas ma ibn Umar ma Mujahid ma Sa'id ibn Jubayr yaa ku fasiray uma baahni in la iiga horeeyay warku waa soo leexday marka waagii hore waxaan garanayaa waxa laga doodi jiray mawluudku waa bidco waa bidco way qiri jireen laakiin waa bidco xasana abay ku doodi jireen waa bidco laakiin waa bidco wanaagsan halkaas ay dooda ka gali jireen laakiin bahashii tagtayo hadda waxayba maraysaa bidcaba meehe quraanka ba sheegay quraankii marka aayadihiisa in lagu ciyaaro oo caamada lagu wareeriyo oo tafsiir ayna lahayn la saaro markii la soo bixiyo aakharo oo dadka oo dhan banaanka la isugu keeno qoraxdana qaaba qowsayn oo adna la isu soo dhaweeyo qoraxdana oo kulaylka meesha ka jira daraadii qof walba amalkiisu intuu la ekaa dhididku u gaaraayo oo qof dadka qaarkiina uu u gaaraayo lugaha hoose iyo jilibka iyo ilaa qaarkoodna ay ku haftaanba ay saa u kulushahay yaa ummadihii kale oo dhan oo ummadeenna ay ku jirto yaa waxa isweydiinayaan meeshaan aan joogno in dadka la kala xukumo oo qoraxdan laga kala dareero oo qof walba amalkiisu meeshuu geeyay loo kala xukumo inay fiicnaan lahayd oo kuleelkan laga baxo markaas waxay dhahayaan bal nabiyadii ilaahay uu soo dirsaday u tagno si ay ilaahay noogu weydiiyaan meeshaan in lagu kala dareero markaas waxay ka soo bilaabayaan nabi aadam oo bin aadamko dhan uu ka soo jeedo markaas waxay leeyihiin adaa aabba noo dhibka aan ku jirno waad u jeedaa ilaahay wax noo weydii meeshaan hanaga kala xukumee markaas wuxuu leeyahay uu ka cudur daaranayaa jannadii lagu jirayba maxaa idinka soo saaray ilaa aabihiin khadiyadiisii macnaha geedkii uu cunay sabab u noqon in jannada laga soo baxo hawshaas hawl aan geli kara ma aha nabiyadii kale la soo marayaa dhammaan way ka soo cudur daaranayaan marka la soo gaaro nabigeena xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam oo leeyahay rasuulka ilaahay oo xabiibka ilaahay oo adoo ilaahay ku jecel yahay ummadda waxa gaaray waad u jeedaa ilaahay u weydii in la kala xukumo markaas nabigu wuxuu leeyahay ana laha wa fiina ana laha hada malaha waa carabi laakiin Soomaalina uu egtahay ana laha soo Soomaali ma wax yaa iskale waa taydii markaa rina dhahdii ana laha way macnaha ana laha shafaacadan ana laha ana iskale markaasuu arsh hoos ku sujuudaya markuu sujuudo kadib ayaa jibriil loo soo dirayaa waxa la leeyahay madaxa kor soo qaad ergadaada iyo shafaacadaadana waa la aqbalayaa maxamed alayhi salaatu wa salaam ilaahay wuxuu ku karaameeyay inuu u soo diro caalamkan oo dhan caalamul insi wal jinni dhammaan caalamul malaa'ika midda ugu weyn oo qof kasta garanayo oo waa taas weeyaan waxa kamida qasaa'istiisa waxay u qaybsamaysaa mid dunawiya iyo mid ukhrawiya mid dunawiga ahayd oo aan adduunka intuu joogay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sharifay waxa kamid ahayd al-israa wal mi'raaj ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu asagoo maka jooga dheelmiyey baytul maqdis geeyey ambiyadii iyo rusushii oo dhan u soo kulmiyey halkaa masana ka sii waday ilaa xadrati rabbihi uu tago waxyaabaha khasaa'ista ah oo ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala ayuu ka mid yahay ilaahay baa wuxuu faray rasuulka tawaaduco wuxuu yidhi axadkii adiga ku raaca wax alla wixii mu'miniintaha ku raaca garabkaaga u raaricu jilicsanaaw rasuulka marka waxaa edbiyey
إلهي بأدبي وكي رسولك عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي إلهي بأنيقا يدبي وأدبت إذن ونأكتيي مركز كبعدنا رسولك أمدي محمد يدا هذه المؤمنين تيبا وأدبي تواضعي ببراي رسولك تواضعي سوحا كمدها عليه الصلاة والسلام مركيو لسود دراية وحال يري إنا نقطه نبي أو ملكه هي إنا نقطه نبي أو متقانا الدون لبدا كلا دورو رسولك عليه الصلاة والسلام وحو دورتي أن يكون نبيا عبدا إنه نقضه عبد المدو درجات كواوين ورسولك ما شرف مقاماتي ماشا وقفيغا الدون مدو ماشا وقفي عنوي ودرجات وقصر ريدو رسولك مقامات كي سميله واوين ودنبا الدون بالقوت الماماي سبحان الذي أسرع بعبده وكيلا إلهي وحلقه يا سلق النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة المنافقين والكفار منافقين تيو كفارة النبي كما صليان عليه الصلاة والسلام بل واحد أركن كوا النبي صلى سمرك الله الشيخ دقاها قبسانية أيضا مالها قاركو أركيسا أما كنت الماما يعنو أعرقني مساجدي مركي ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء ليرانو وشرك دقاها قبسانية ومنافق أفكاس وحكا لماها مركا أما النثري هاللوغو نبي أما الندم لبضبا صلى النبي عليه الصلاة والسلام منافقين تي قال له خلافية وحليه ليا محو الخطايا والأوزار ذنبي إلهي كلافية سبحانه وتعالى وحليه لا قضاء الحوائج والأوضار حاجة هذه دنت إلهي نكوجد سبحانه وتعالى وحليه لا تنوير السرائر والظواهر ظاهر كاغا مقال كاغا يبادن كاغا لبضبا إلهي نورنا وحليه لا النجاة من النار نار لو قبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم waxaa looga helaa dukhulul janna jannada gelitaankeedu sabab noqdaa salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga helaa salaamul malik al-ghaffar nabadgeliye ilaahi subhanahu wa ta'ala yaamni ayaa laga helaa ikhwatal kiram salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas ahlullaahi ugu badin jireen kataradiisana waa la is amray in la badiyo eesha ugu yar waxa la yiraahdaa culimada qaar ku sheegan waa 300 waa 3000 waa 30 rag baa yiri كما حرنا أذوق بدي أنت أبدي سد فبالصلاة عليه تنحل العقد وتنفرج الكرب وتقضى الديون أنت سلك النبي قال لك يسد عليه الصلاة والسلام gabagabada munaasabada ayaa waxa khatan looga dhigay qasaa'id lagu ammaanay nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام وسلم على اللهم صل وسلم على على محمد صلاة الأبرار على محمد صلاة الأبرار على محمد صلاة الأبرار صلى عليه طيبون الأخيار اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على هذا حفيظ نور ورقة تلفزيون كصومالي كيبل مقدشو dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah